shuruucda kitaabada ayaa laga wada faahfaahinaya intaas haddaan nasiixada iyo hordhac u dhaho waxaan maray dadka qaar waxay jecel yihiin wixii ma kolba isbuucaasi la hadalhaayay in wax laga yiraahdo Soomaa waa laga yiri ma iska dhaafno mise waan ku darnaa in wax laga yiri aynu ku darno marka horta saacadan la joogo intii la isku kulaa iyo isbuuc maalmo la soo dhaaf iska dhaaf haddaynu ka qabanaynaa hadda xagee la kala joogaa hadda waxa la kala joogaa qof arin khalad ah yaani ku hadlay oo lagu qabsaday oo cudurdaar ka bixiyay oo arintaas way iga khaldantay waxaali gelin ka bixinaya wixii khaldamayna naftayda iyo shaydaankay ka ahaadeen intaas markay joogto wayba dhamaatay Soomaa wadaadadii maxay dhahayeen markii horena hadlay saa yiraahdo toobad keeno hayo waan toobad keeno dhahay ka bacdi maxaan sii wadaynaa bas way dhamaatay taas markay dhamaato diinteena islaamku waxa ku socda sida ogsoontihiin yaani weerar adag oo hadda adduunku waxyaabaha la isku haysto waxa kamid ah غزو fikriga ama maskaxda waxaa jira marka shubahaad oo qofku haduusan diinta aqoon fiican u lahayn meel laga soo galgalayo dadka diinta cadowga la ah ee aan ama muslimka aan ahayn ama diinta nacab dhaliil ahayn ayaga la isboodsiiyay ayay inoogu soo gagabadaan oo diintiina saa qabto meelaha jijirta marka kuwaas ayaga waxa la rabaa marka diinteenu waa diin cilmi ku dhisan xaqiiqadana taabanaysa si cilmi ah in loogu jawaabo la yiraahdo diinteenu waa diin xaq ah arinkana sidaas iyo sidaas ay leedahay waana sida ugu saxsan qofkii markaas gadaal kaga istaaga Soomaalideena hadda alxamdulillah rabbil caalamiin waxa fursad inoo ah raayul caamka ummadeenu waa raayul caam diinta u khidmaynaya oo qofkii isku daya dareenka xagga diinta inuu dadka ka soo galo oo wax ka khaldo waardiye adag ayaan haysanaa horta oo ah raayul caamka inoo samaysan xilli waxa jiri jirtay hadii diinta wax laga sheego iyo hadii si kale la yiraahdo dadka intooda badani ama inuu ku baraarugsaneen ama ina dan kala haynba laakiin hadda isbedelada aqoonta ay keento waxa kamid ah yaani diinteena islaamka cid inoo ilaalinaysa oo mas'uul inooga ah ma jirto innaga shacbiga ah ee muslimka ayaa mas'uulka ah marka waa raayul caam guud oo ah diintiina wada ilaalin inoo wada jirna saas waxa marka samaysay marka qofkii raba ummadan Soomaaliyeed inuu kasbado waa inuu diinteeda u ilaaliyo oo diinta uu hirgeliyo oo diinta yaani uu ku baaqo laakiin hadii diinta yaani ama sixun uu sheego ama yaani waxyaabo kale uu soo maro dadkii ayaa ku kacaaya bas waardiye adag difaac adag oo xiran waagaas qofkii marka hadda isdhiila Soomaali way hurudaa ama dagaaladii soo kale intay ku rafaaday ayayna diinta dan kala hayno wixii doona laga samaysan karaa bal horta hal ogaado sidaan sheegi jirnay waan soo jeednaaye indha faraanay gelinina cid aan ka yeelayno ma jirto waa wada baraarugsan yahay waa loo jeedaa midaas intaas ka bacdi arinta ku saabsan midaan haweenka yaani mugti meelaha midaan muranka badan uu ka yimaado diinteena islaamkuna waxay ogtiin waxa imaatay ayagoo gabdhaha la duugo oo ilaahu yiri idil maw'udatu su'ilat bi ay dhanbin qutilat markaas qofkii ugu horreeyay diinta nabiga markii la soo saaray gabar ayay ahayd yaa ugu horreeyay khadiija bint khuwaylid radiyallahu anha aayadii ugu horeysay iqra bismi rabbikal ladhi khalaq markay soo degtayba nabiga oo gariiray oo cabsanayo ilaa wuxuu hore u arkay ma waxana ayaa gurigiisu ku soo laabtay asoo dhahay laqad khashiitu ala nafsi markaas waxay ku tiri kalla wallahi ma yukhzika allah abadan ilaahay kuma hoojinayo sababtu maxay tahay tilmaama nabigu uu ku tilmaamay yahay u tirisay markaas qofkii tilmaamahaas ku tilmaaman ilaahay ma hoojinayo qaraabadaad xiriirsa waxa macduumka umadu u baahan yahay aad u kasabtaa martida ayaad soortaa xaq ayaad u kaalmaysaa intaas oo sifo qofka leh marna ilaahay ma hoojinayo marka xabsanin wax dhibo ku soo gaaraya majid markaas intay ka xaysay iyo wax u geys warqan ku ogtiin ayada ugu hormaysay kadibna markii muslimiinta la cadaadinayo oo in la dilay bilaabatay dhiigi ugu horeeyay oo la daadiyo gabar ayay ahayd yaa adeeran hayada sumaya awwal shahiid fi al-islam
وجبر أول مؤمن بالله بالرسول صلى الله عليه وسلم نبي كذبنا وجبر سدور كاسماء ماشي يجارين قبلها أن المسلمات كعا وحي جارين خديجة بنت رضي الله عنها ملك جبريل أنتم صادرة إنه إله هذا رسولك إله يو خديجة إلهي أيها سوس سلامة سلامتك الجارسي إلهي بقى سوس سلامة كور أنت كنت الله هل كاس وإن قبلها أن ماشي عن وضنه هي سيدة عن ربنا كوا مرة قبلها دان كلهن أو أيام محايد وقلت لك الكلي إنه كدكتان ما لا وحيابها الوقوع حسيت ديكور كلي هذا أو مثلا الشامبه دي لصوص صار جبر يكوس صورايان أو مدح قوية جبر لما شامبكو قبيست محايد يكوس صورايان بدأ عضل يكون جذنايان مركب حي ربان إنه بدأ عضل لجذا أيوه قبلها مقالة ذولا إنه يسكو جذان أي ربان كل نوع عاسها يا محايد كلهايان دين إسلامكو قبلها ومرهونه أو سين أو قرونين أيضا العاسة ينتهي دين تسودكتي يا وين الحقوق أي لهايان أو أنت واحد دايسي أي عملك أي سمين درادي جننا ولا يجوب الشارع يقول نول إلهي نوصل سلامة شرفت أنت عكبنا ولا جالسين لما حيتها هيو هما سويدين كير معها يعني أنت الحديث هذا اللي قال مثلا ناقصات عقل والدين ناقصات عقل والدين نولا شعبان معها موقف محدد أي اللي قال الله نبي أنا فسر صلى الله عليه وسلم وعلى عمره ما يشاء النبي يالب هذه مثلا نبي تقول ناقصات عقل والدين الشيء وكذا لها مركز مره وإيمان لها محل جوضاء محل ولا جيدا ولا سوق قبل لها لكن محل سوق قبل بها وحي ولا جيدا النبي قال بشيء سواء لقاتون مركز معه مركز أرنت محل واحد ذي مركز مثلا سوق للجوجو والدين لك لقاعدنا أيوه قبله مالها يكشقين وين كشقين كرانه وما بدنا السوق يده سوق يده وحكوب بدن نمنك أو جناعسي يحك إنك سوق قبله كجيران جناعسي لكن ده شركتها واوين يا جناعسي واوين يا هؤلاء أنت بدن شقة بنانك رجي هوايان كلو كلا قيب سنتا يعني شقة بنانك الرجال لجوجي هاي شقة جوريجا يا عروتا يا كورنتو ده أو أنكاه مية ديارين ولا هذا سن كذب بدنين وبكذب بدن تاي فعلا وهذا مثلا من كان هذا هو قبله إن دهان أنت أصلا مع الموت باناني علمها جوريو كوهاي ما أنت غير كأن نسوا السلام يا عروتا سياحي إلى اللحسة بس إلى سياحي بل لما كان سويدين إلى اللحسة علمها دي يقولها فكور رفاضك وقبنا ساعات ما تكيسنكرت كو أنت أبودا كو أنت أوردا كو أوينا ساعات هذا المال لكن هو يوم كانوا ماتوا كي أوينا وآموسها ملك نلا الداري ولا الدنيا عمل لواد أدنى نفتح كذا عظيم مرك إلهي أصلا دتك مدول بمشي وكشقين لها أيوفو ذي سوقيا مرك اللي جوجا مرك رجع كوبرن دين بالك على قاعدنا يا مرك سورة بقرة أمات كذا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب يعني دين لك قاعدنا يا دين تبارك لك قاعدنا يا مرخاتي يا لو بهنيا يقفكم دين تقاعدنا يا إنه دين تقاعتي واحد ديناي لأن قف مركو دلنا يا سون دين لجوه مدرسة هذا ودان وحلا قول مرخاتي لا سميني وحكونا يا أنا أيون دين لجوه مدرسة ماشي الدين تيجي صار يسبل شيء هذا هذا شيء ولا مركب ماشي الدين تكسرتي وده الدين وده أما دوكومنتي أما مرخاتيات كانوا يسوا قرصورها الجوجل يحكونا يا نين كان دين لجملة محيي أنه وحنا وين البراءة الأصلية وحلا هذا قف كاني أصوغ عن دين لجوله هين أيام وين ذي مدي صدر مشغول يسوا الدين أبجلين يسد سيدا الدين تكوجل يسي أو كوقاتي سواء عديسو سي مرك حقي ونوضو من يا حالي اللي مركي مثلا مرخاتيات سمين إنسان سوق ما دام النمن وبليين لبن من مرخاتي كدكت وحالي ما ماشي وحوغا يلا جيس ميا ما قانو لبدي نين بالواي هي maxaa jooga marka waxa jooga nin iyo laba haween ah labadaas haweenka iyo ninka marxaatiga noqdeen labadan haweenka waxa laba looga dhigay waxay tahay xigmada la sii sheegay ayada sii sheegays an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra haday mid hilmaanto ama dhunto wixii la kala qaatay mid kale u sheegaysa mid waxay leedahay war maalikii deynta la kala qaadanayo ninkii hebel ah deynta uu isku qoraayo oo marxaatiga ka ahayn horta lacagtiisii 500 ma ahayd 500 naad waalantahay 700 bay ahayd Allah khayr Allah ku sii 700 bay ahayd hadaa marka taa loo heli lahayn 700 haysa 200 dhumin lahayd 500 ay ahayd istaagi lahayd marka meeshan xaq ayuu dhumin oo ah meeshan maadaama in u badnayn oo khibradna aynu walahayn xisaabna waxaan ay tahay iloobi karo baa lagu xoojinay baahine wax kala ma aha waana intaas intana uu ku fasiray oo ah
markii markhaati la sameynaayo ayaa laba gabdhood laga dhigaa iyo nin waa in town laakiin waxaa la isku khilaafaa dadaa way jiidayaan marka waxay u jiidayaan haweenka caqligoodu hadda soo iskuma ogeyn dayn markii la kala qaadanayo baa xadiisku nabigu ku sheegay qofaa jiidaya markaas wuxuu leeyahay nolosha oo dhan meeshii lagu arkaba caqligoodu nus waay nabigu ma dhihin saas nolosha kale muuna sheegin ee wuxuu sheegay dayn markii la kala qaadanayo ayaa sidaasay tahay mar waxaa jirta hal gabar markhaatigeed la qaadanayo oo waa meeshaas waa meeshee waa meel ay khabiir ku yihiin oo yaqaanaan gabar umulisa ah ayaa laba haween ka umulisay markay ka umulisay ayaa labadii haween laga dhaliyey ayaa iskhilaafay ilmahan yaa dhalay waa la isku qabtay haye anaa kan wiil iyo gabar malaha kala noqdeen mid walba wiil kartaa inay qaadato inaan Soomaali wiilka jecel yihiin maxay wiilka ku jeclaadaan tolow dagaalada ku jeclaadaan iyo ceelka ilaalin jireen laakiin hadda magaalada la joogaa magaalo ma ceel iyo geel meeshan taala gabdhihii yani shaqada kooda jiray iyo kuwa banaanka noo aaday iyo kulli yani gabdhaha naxariistooda waa la arkay marka wiilashu waxay ku jeclaadaan saas ay ahayd marka hayo isku khilaafeen markhaatiya loo baahan yahay kala bixisa umulisadii ayaa la weydiinayaa adaa ka qabtay markay dhalayaane balse u kala dhaleen noo sheeg haa tan wiilkay ishay tanna gabadhay dhashay waa hal gabar Soomaali wax markhaatiga furaysa waa loo saxay waxa la ord sax maxaa loo dhigi waayay warkaaga lama qaadan hal gabar tahay lama dhihin waa lagu qaatay meel waxaa jira 4 gabdhood ayagoo ah aan markhaatigooda la qaadanin hadda idinka laba level sheegay 4 markhaatigooda lama qaadanayo oo halkee waay zinada haday nin iyo naag isku fadhiya ay 4 gabdhood soo maraan meesha oo ay dhahan Allah anaga aragna anagu 4 waxa la waxba kama jiro sababtu maxay tahay gabdhuhu way xishood badan yihiin meeshan isku fadhiya markay arkaan Allah bismillaahir rahmaanir rahiim ma sugi karaan wixii meesha ka socday way xishoonayaan laakiin 4 nin way sugi karaan 4 nin haday arkaan ay xaalad saasay tahay way sugi karaan hawsha soo dhacayso way sheegi karaan laakiin 4 gabdhood ma sugi karaanoo waaqici ma sawiri karaan xishoodka badan caadifada ku badan marka waa saas marka qadiyadu fiiri waa takhasus iyo meeshan sida ay tahay ama hadii banaanka inta looga soo baxo hay banaanka looga soo baxay ma aha markhaatigi oo midalan suuqi oo deyntii la kala qoranayo ma ah waa noloshan kale caadiga ah qof walba ilaahay wuxuu geliyo aqli ayuu leeyahay xubnaha bini aadamka hadda markaan fiirino dhaqaatiirtuna ha si cadeeyeen abuuritaanka ilaahay uu abuuray dadka miyay kala bedelan yihiin oo midalan wadnaha soo qaad wadnaha wiilka ku jira oo dhiiga qaybiya iyo wadnaha gabadha ku jira ee dhiiga qaybiya miyay kala duwan yihiin soo laba wadno islaam ah ma mida bar mid miya buuxa ma wadna leewaay kelidii leewaay xubna ahaan abuuritaanka ilaahay dadka asaga abuuray kala fiicnaanshahana rag iyo haween laguma kala fiicno ogaada laakiin naga Soomaaliya mushkilada inagu dhacday sidii madaxa loo garaacay gabdhaha loo garaacay gabdhaha naftooda waxa ka dhaadhacdayba inayba hooseeyaan markaas aad waxay su'aal soo weydiis sheekh ninkii way dhibayo ani waan xanaaqay asna way iga daba xanaaqay ani waaba la gartay kontoley baaban ahay boqolow muxuu iga daba xanaaqay kontollow macnaheedu ma aha inuu ka fiican yahay maana waxay tahay shaqada maadaama nimanka nafaqada iyo biilkii laga rabo oo dadka u soo shaqeeyaan hadii la dilo nin qoyskii ninka laga dilay maadaama khasaarihii dhaqaalaha la soo gaarsiiyay lama kabi karee bal in yar in lagu celiyo wadi mesela qof muslim hadii la dilo ama rag ha aado ama dumar ha aado adduunka waxa yaalo dhan hadii la qiimeeyo asaa ka qiimo badan la zawaalu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajul muslim markii saas leena waa gabar iyo nin waa isku mid oo yaani dilka mesela haday gabar nin disho wala qisaasa Soomaa gabadhi haduu wiilku gabar dilana mala qisaasa ay mas'uuliyadin ma kan wiil waay kan gabar waay ma jirto an nafsu bin nafsi yani waa kan gabar haduu dilo wiilku yani waa la dilaa gabadhu haday wiilka disho waa la dilaaya marka fiir arrimahan waa wax ku saabsan mawaadiic gaar ah oo takhasuskeeda leh oo xigmadda iyo khibradda ku jirta kulli wada cadeey midaas waa midda aqliga xagga diintana mesela soonkan joognaa 30 maalmood aan iska rabaa in la soomo 25 markaan sii mareynay gabdhihii waxa ku dhacay macduur ay noqonayaan Soomaaliya waxa ku maamaadaa soon haween 30 ma gaaro 25 markuu maray uu ka jabay raashinkeeda iska cunay 5 maalmood soonkii uu dhamaaday ilaahay baa u fasaxay laakiin qofkan mesela 30 ka soomay
وحلو قرايا صدن أيو رمضان كي كصومي قبلنا ميقال لو قرايا شن يلا باتن أي رمضان كي كصونتي ويسوق قلين دون تاشن تمالمود لكن شن تمالمود رمضان غير كي لو قلين أيو قلين بالس كسو جود أياه أجر كي رمضان كلوه لها اسكو من معها يعني ما أنت رمضان كا أو رمضان كده يصير قد حصومه ويكفر ببلان تهاي ما لنا رمضان هين أو سوق قلين ما أنت رمضان كاي مركز نقصان تلشيء أيو ما قبله معنا ليسان كران دين تو يعني ويبمن تاي معنا هذا ما وهاي تاي وإلهي بقوه قلاضي معذور الكويين هذا مثلا عنص على أفجوي وصدنا كيلومتر سأسعن قفا وحكود عليه لبعتني شن كيلومتر مركز لما راي هل كاسو فريست قفنا مولى دالنا صدنا كيوجي كان شن لا تانو كفريست محاكو داعي نقصان أو شن كيلومتر أيها كارد من مركز أنت لشيء وين تاسو معنا هي نين يناق ملو فيرنا سالان جبرا شن لبعتن كاسي سيف عنو صنت سيف عنو عباديستي كون نين هدو دونا ما بينو تكنيب ما بينو عباديستني ما ينو نين يه أيو دين تسقط ما يسترن تهاي جبرنا لبعتني شنتي أنتو إلهي يعني أقدر إن عايز كل عن سوبوا الحزم يوقف عنانا ما يكمل في عنانا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم تقوى أنا محيطة تقوى سو وقفك وكسبة ما مش تقوى الله دشا ولي ما أرتين قف إسكسر دشله وإن كان تقوى ما يوينا ثلاثة كتب والقرآن آخرته والصدقة بحثته تقوى وحلا كسبنا ويلنا وكسبان كرا قبلنا وكسبان كرا مرك حديث النبي صلى الله عليه وسلم السجع عدي وحلا جوده أنت نبي وكو عدي هلو دايو أنت أسوي كبحثان ومالك الله قالنا هل يسكت دايو أو أنا دين قبلها أنت أسمعك لقى جد نورش كلا بنانك عيد حتى ويكون نسخان سيء يعني لدين صوتها أرينا أجيك اسكت الحلي يا أصحابت مركي الحديبية النبي يقول مدحين إسكحير تبع نقرأ هناي واحد مدح حير تلوي سيل يا لملا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قولي مال داش الله رسول كذا صار نقضي أسوأ مهموم مروجيسن سلمة رضي الله عنه حاس كيسا وحيت معاك ودا رسول كلايو حير دتك تمي حير تيان لا وركي جن مقلايان وحيت نتابع حظه هذا وحبا قف وشيجين أون هاللين با هذا وحيرة كدبنا واحد سميان فيري وبحي ماشي وتجي مركو ماشي تجي تنتي مركو أصلا هو باللابين الله حيرة أنت اللي بلا بيسوي جيستين وحاله وحي كوسكتين دقاين يسقويا سيو بوبسيلي سو عقل اللي ما كينين أو أنت أكو حال سنتو إسلا حديث كده شيء إني أو هذا مثلا ناقصات عقل والدين معاكوا عيا نقول ما أركن من ناقصات عقل والدين هي معاكوا عيا أو هذانا كقعد كان شبابا نين عقل له أو قوان له ميد إذن كذي كملا إذن كهذا صون كذي إذن كجبايو دانك كله شهادة دي مركي أو لقرا المالية ده لبقى قبل يقول لي سكوت درا أيوة ساسي تاي هذانا مركي النقطة أنت عارف كبحثن واللي جاي النبي ما أركونه يريني من كقوان كله أذب واحد إذن كساد وقعد كان يسان وقعد كذا ما بعرف سير وقعد كذا نمك رون تهدي له إسكشة نمك يناقها يا هذا قرط ناقها هذا سويتوا هاي سوالكم ما الحين نمكو ورا الجيل جلوه مرة لكن جنب الجيل جل ما مرة هذا إنسان سوجي ستوجر هذا ما أنتم بحيس وفريسان عليه هذي لكن ورا الله يسوي عرس صباح ورا أنا ما ورا يتاي يسأله ورا كودر درا ورا الجيل جل رقوه مرة لكن جنب الجيل جل ما مرة تاسمع كنت سايسان خطر سنة هذا لباحة وحالي وحات شابتها حيوان ككلية لباحة كعبة وأنك تسالير لباحة كلا بدك لباحة نكا ويكادرتي مرك حاجة صدق غفيريو يا آية دي كلا إن كيد كنا عظيم هداد زوج جيزتان وحيس دون مرن واحد إنجاره مجرد مرك قضية وقضية ساسة وحبيان الإسكود دالين إنه الإسراف هذين حديثكم هو صحيح إنه صحيح أنا الإسكو ما يستو والإسكو وافقي قف ديدي يقف توبت كينا يقف كان نقضيها كل هذا وحنا تاجنا حديث كاسي ورواه البخاري ورواه مسلم سند كيسة يمتن كيسة واحد يقول كتاجن مجرو ومتفق وحديث صحيحة معنيه سنة واسدة صو هل كانوا كوكوبية والله صيف السيرة النبي قال صيف السيرة أنت وحي كسي دنبايا قفك وحشيك شيء سيء وتعالى ما كان لو قيدنا وحرر الدين تيسلاي تاي أما عندنا كوسا بسنة وكلا صومال نمت كعه أو إسجيد كعه إسلام مرايسك شيء يقول أنا بريموت إسلام مرايس واحد يسوى صارن marka isla la iska daayo wixii la isku hayana si walaaltinimo leh hal loo hadlo wadankaana walaaltinimo iyo jacayl hal lagu abuuro in irugu filan isnacay waa la soo abuuray aan bedelno isjacayl aan abuurno hada uma santin wa sallallahu ala sayyidina muhammad rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan sallallahu ala sayyidina muhammad